waa mid ka mid ah muuqaalada aan kaga hadalno dalalka caalamka markaana waa jasiirad lamoodka Balkan ama Balqaan gaar ahaan dalka markiisii ugu horeysay tagay finaalka koobkii adduunka ee 2018 lagu qabtay dalka qabow ee Ruushka aandaha ka qaadaysa ee waa dalka u saaxiibka ah goobaha qadiimka ah ee sida rasmiga ah loo yiraahdo Jamhuuriyadda Croatia ama Republika Hrvatska. Croatia waa dal dhaca jasiirad lamoodka Balkan ee koonfur bari qaaradda Yurub wuxuuna saaran yahay badda Adriatic wuxuuna xal la leeyahay dalalka kala ah Slovenia, Hungary, Serbia, Bosnia Herzegovina iyo Montenegro. dalka Croatia bad ahaan wuxuu ku fadhiyaa wax ka badan 56,000 kiiloomitir isku wareega wuxuuna leeyahay in ka badan 1,000 jasiiradood oo dhacaan badda Adriatic balse 50 ka mid ah ayay dadku degan yihiin. jasiiradaha dalkan waxaa ka mid ah Glasniak oo ah jasiirad si dabiici ah u samaysan isla markaana leh muuqaalka wadnaha. sidoo kale waxaa dalkan laga helaa xeebta Zlatni Rat ama geeska dahabiga oo ah xeeb uu qaabkeedu ay dabeeshu badbadasho. Croatia waa dal qadiim ah oo la sheego xitaa in la deganaa bartamihii casrigii dhagaxa balse dadka Croatiska ama Croatka waxaa la sheegaa inay soo gaareen bilowgii qarnigii 7aad waxayna 879kii Croatia noqotay gobol madax bannaan kadibna 925tii waxaa ka hana qaaday nidaam boqortooyo oo jiray ilaa 2 qarni. awoodo kala duwan oo soo maamuleen kadib ugu dambeyn waxay ka mid noqotay dalkii la oran jiray Yugoslavia waxayna si buuxda u noqotay dal madax bannaan sanadkii 1991. Serbia iyo Croatia waxay ka mid ahaayeen dalkii Yugoslavia waxaana maanta u dhaxeeya muran dhuleed oo cajiib ah. labadan dal waxay ku heshiiyeen inuu xadkoodu ahaado wabiga Danube balse muddo kadib wabiga waa uu bedeshay jihadiisii. isbedelka wabiga waxaa dhul weyn ku weysay Croatia waxayna sheegtay inay aqoonsan tahay xadkii hore. Serbia waxay sheegtay ayadana inay isbedelka wabiga uu xaq yahay maadaama ay heshay dhulka weyn dhulka ay weysay waxaana halkaasi ka soo baxay dhul ay labadan dalba iska diideen. tirada dadka dalkan waa 4 milyan tan iyo 1991diina waxaa hoos u dhac laga dareemayaa tirada dadka dalkan dagaaladii ka dhacay dalkan iyo qurbo joogtiisa oo badanaysa awgeed. 90% oo dadka dalkan ah waa Croatis halka 5% yihiin Serbis. inta soo hartayna waxay u badan yihiin dad ka soo jeeda dalalka la deriska ah dalkan ama xitaa dalalka uu xiriirka wanaagsan la leeyahay sida Germany. luuqadda rasmiga ah ee dalkan waa Croatian waxayna ka mid tahay 24 luuqad ee midowga Yurub ee waliba rasmiga ah waxayna sidoo kale ka mid tahay luuqadaha Slaafiga. waa dal ka kooban 20 gobol magaalada Zagreb ayaana ah caasimadda dalkan sidoo kalena waa magaalada ugu weyn dalka waxaana ku nool 5 meelood meel oo dadka dalkan ah. waa magaalo qadiim ah isla markaana aad ugu badan yihiin madxafyadu ilaa ugu dambeyn lagu naanaysay magaaladii madxafyada. madxafyada magaaladan waxaa ka mid ah mid loogu talagalay xiriirada jacayl ee burbura waxaana dhex yaalaan waxyaabo ka turjumaya xiriir jacayl oo burburay sida hadiyadihii ay isa siiyeen labada qof ee uu xiriirkoodu burburay. Jamhuuriyadda baarlamaaniga ee Croatia waxaa haatan madaxweyne ka ah Zoran Milanovic oo wuxuu sanadkan xafiiska kala wareegay haweeneyda caanka ah ee Kolinda. waa haweeneydii ugu horeysay ee dalkan madaxweyne ka noqota waxayna ka mid ahayd shakhsiyaadkii loogu hadalhaynta badnaa intii uu socday koobkii adduunka ee 2018. waxay si la mid ah taageerayaasha ugu sacabtumaysay xulka Croatia ee markii ugu horeysay gaaray ciyaarta kama dambaysta ee koobkan. dhaqaalaha dalkan wuxuu si weyn ugu tiirsan yahay dhanka warshadaha iyo dalxiiska wuxuuna dalkan ururka midowga Yurub ku biiray 2013. Croatia waxaa aad ugu badan goobaha dabiiciga iyo beeraha qaranka halka ugu caansan ee dalxiisayaashu tiigsadaana waa beerta qaranka ee harooyinka ee Plitvice. sidoo kalena waa goob ka mid ah 10 goobood ee dhaxalka ah oo ay UNESCO ka diiwaan gelisay dalka Croatia. sidoo kale dalkan waxaa ku badan godadka waaweyn intooda badanna waa kuwa ay dadku booqdaan oo ay taariikhi ka muuqato sida Belgrado iyo Bijevo. sidoo kale waxaa jirta town ama magaalo yar oo dalkan dhacda oo la yiraahdo Ham waxaana ku nool ilaa 30 ruux oo kaliya. dalkan wuxuu leeyahay xayawaano u gaar ah waxaana xayawaanka qaranka ee dalkan ah Bin Martin. sidoo kale eyga Dalmatian asalkiisu waa gobolka Dalmatia
ee ka midka ah 4 gobol ee taariikhiga ah ee Croatia. Dalkan waxaa kaloo laga helaa qaar ka mid ah xayawaanada sii dabar go'aya sida nooca la yiraahdo Eurasian lynx oo ka mid ah qoyska bisadaha isla markaana la moodo gaduudanaha aynu naqaano.